dalalka Yemen, Kenya, Djibouti iyo waliba Liibiya ayaa kamid ah dalalka ay ka imaanayaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo noqonaya qaxootinimada. Wallahi horta farxad la qiyaasi kara ma aha farxadaani maxaa yeelay aniga oo maanta xagga aan ku dhashay xaggan aan ku barbaaray. Maxamed Cabduqaadir Cabdullaahi waxa uu ku dhashay dalka Yemen kuna soo qaatay waxbarashadii asaasiga ahayd. ما شاء الله horta wadanka yani sida anaga ahaanteena hadan ka hadalna xagan ku dhashanay xagan ku barbaarnay xagan wax ku baranay yani waxyaabaha anaga noo sheegay wadanka sidaas ka jira ama sidaas ka jira dagaal ka jira ama qaraxyada anaga aan loo cabsiisnaayo ma sha Allah maanta ma jiro wadanka ma sha Allah wadan aamin ah oo maanta ishubo oo horumar gaaray waay ma sha Allah. dadka ka soo noqonaya qaxootinimada waxaa loo sameeyay xarun ku meel gaar ah oo ay degaan oo hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranku leedahay. mararka qaarkood 200 oo qof ayaa hal habeen kaliya la seexiyaa macnuhuna waxay tahay qof kasta ee la soo qaado inta aan meesha uu u socday oo asal ahaan ka soo jeeda ama hadda raba in la geeyo uusan gaarin meeshii habeenkaas uu joogi lahaa iyo meeshii hay'aduhu ay kala kulmi lahaayeen. xaruntani iyo dadka qaxootiga ka soo noqdaba waxaa gacan siisa hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR sida uu sheegay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Dr. Axmed Daahir. hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa maamusha samaysay dhaqaalaheedana waxaa naga daboola hay'adda UNHCR ta laakiin cidda maamusha ka shaqeysa كريسي وارديهeda iyo neesinka jooga kalkaalayaasha caafimaadka jooga iyo shaqaalaha jooga kulli ka howlgasha waa shaqaale ka tirsan hay'adda qaxootiga. Abuukar Shariif Ahmed 27 sano ka hor ayuu dalka ka baxay waxa uu iga sheekeeyay farqiga u dhaxeeya markii uu dalka ka tagayay iyo maanta uu dib ugu soo noqday. aniga caruurteedina 8 waaye hadda waa guuray gaareen daraad gowra laga soo guursaday kulli Yemen aan ku dhalay kuwaas oo dhan الحمد لله لكن ما أنتوا حنربا إن دلكيجو هايو عن دب وصار ناخذ عن فيريو عن كشخيستو عن دجو والله آدي هذا فرح سنة ما أنت وعم جعله من التلفزيون هذا يقدر يستذكرنا نيركان عن خوابه غير خرس يرر بساتين يرر مقدسب لا إلا واتنسن سكرس معها وحنكبح عنه شبابه صوت نجرا بحدنا سنة كنت نجرا ما شاء الله ما أنت مقال مقدسو إنسان أو تجي إسياد تاي اسم لها إله الله الحمد لله مقاله أو حمانة أو حرنم كسعنه oo lagu qaabilay lagu soo dhaweenayo. caruurta dadka ka soo noqday qaxootinimada waa kuwa aad u faraxsan waxaas ay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo waxbarasho. horumarka xawliga ku socda ee dalka waa sababta ugu weyn ee ay dadku ugu soo dhiiranayaan inay dalkooda dib ugu soo noqdaan. مغاي ديرو إني ولا ديرو آذن والله إني عن ودنك كوي ودرن سدي إني ودنك أنروي ودنك شيء أنروي هدن ودنك أنا حق نقدي إذا ملك أنا حق لا أدرن إني ودنك في عنيه. عوا قليف محمود اللي هذا مركا البورك إمي عرضي إذا دون كذي سجاشن اللي حذي أنك تجي. عبد الرشيد محمد عود waxa uu kamid yahay dadkii ku dhaawacmay duqeymihii dhanka cirka ahaa ee dalka Yemen ka socday waxaana uu kamid yahay dadka dalkooda ku soo noqday. diyaaradaha taxaalufku meesha la yiraahdo magaalada Khooka lagu yimaadeen ka bacdina doonay aan saarno batrool ku yimin jiray diesel ay doonay garaaceen dadna marka aniga kaliya ka joogay oo nimanka rootiinta la diglin been siinaan meesha ka baxay ka bacdina diyaaradahaas ay yimi waana duqeeyeen kullu calaaliga iga soo gaaray ayaa aataarta ay yeelay. sanadihii u dambeeyay ayaa waxa soo kordhayay dadka dib ugu soo noqonaya dalka waxaana ay tusaale wanaagsan u tahay nabadda iyo horumarka ka jira wadankeena. Cabdi Shakuur Ali Ahmed, Telefishinka Qaranka, Muqdisho.